بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaynu halkan ku bilaabaynaa chapterka labaad ee electricity-ga qaybtan oo loo yaqaano current electricity ama electricity-ga soconaysa waxaynu hore u soo qaadanay electricity-ga taagan static electricity-ga okay qaybtan waxay ka hadlaysaa electricity-ga soconaysa lesson 1 electric current casharkeena koobaad insha Allah waxa uu noqonayaa ciwaanka la yiraahdo electric current okay casharkan gudihiisa waxyaabaha aynu ka hadli doono waxa kamid ah define electric current inaynu qeexno waxa uu yahay electric current relationship between IQ and T inaynu ka hadalno xiriirka u dhaxeeya current-ka iyo charge-ka iyo time-ka circuit symbols-ka effects of current measuring current iyo ugu dambeynta aynu ku soo khatimayna insha Allah exercise okay aynu ku horeyno electric current definition-ka ugu gaaban ee la siiyo electric current is the rate of flow of electric charge waxa loo yaqaano electric current ama qulqulka electrigu is the rate waa time-ka of flow of electric charge uu ku qulqulo ama uu ku socdo danabyada electrigu marka electric charge horeynu soo aragnay ama waa positive charge ama waa negative charge marka rate-ka ay kuwaasi ku socdaan waqtiga ay kuwaasi ku socdaan ayaa la yiraahdaa electric current marka waa qulqulka charge-ka ayaynu oran karnaa electric current xagee ayuu ka soo baxaa electric current oo mararka qaar koodna la iska yiraahdo simply current is produced waxa soo saara by an electric source ama il uu ka soo baxo electrigu oo tusaale uu noqonayo batterygu tusaale inoo noqonayo marka batterygu waa mid kamid ah laakiin waxa meesha soo gali kara generator-kii oo isaguna soo saara electric current okay it follows through a conductor waxa uu dhex socon karaa ama uu qulqulaa shay gudbiya conductor-ka ayuu dhex socdaa marka that means meesha waxa ka baxaya insulator-kii ama gudbiyihii marka wuxuu dhex socon karaa conductor example waxa kamid noqonaya wire-radii ama xarkihii dabka ayaa meesha soo gelaya marka la wire-rada best wire wuxuu noqonayaa cover wire-ka ugu wanaagsan marka waa cover wire-ka it is used by electrical appliances waxa isticmaala wax kasta oo adeegsada electrical appliances waxa la qalabyada ku shaqeeya electriga example waxa soo noqonaya lampski baa noqonaya marka saynu tilmaamnay current wuxuu ka soo baxaa batteryga waxa uu dhex maraa wire-rada waxa isticmaala laambadaha ama bulbska ama guluubada ayaa isticmaala marka kan wuxuu noqonayaa source-kii kana wuxuu noqonayaa conductor-kii kuwana waxay noqonayaan electrical appliances-kii bay noqonayaan okay conventional current waa maxay conventional current dabcan current-ku source-ku ka soo baxaa source-kii marka wuxuu noqonayaa batteryga marka current-ka laba loo qaybiyaa caadiyan mid ka yimaada xagga pluska iyo mid ka yimaada xagga minuska ka pluska dhinaca pluska ka yimaada waxa loo yaqaanaa conventional current baa loo yaqaanaa seen hore u tilmaamnay electric current waxa uu ka soo baxaa batterygiina wuxuu leeyahay plus iyo minus inta badan plusku xagga hore ayuu ku yaalaa minuskuna xagga dambe ayuu ku yaalaa marka batteryga la sawirayo batteryga laftarkiisa lama sawiree calaamada batteryga ayaa la qaataa oo muuqaalkaasi laba cidhifo yara kala dheera cidhifka dheer waxa loo qaataa plus cidhifka gaabanna minus ayaa loo qaataa marka uu sidaa yahay xabad battery weeye xabada batteryga caadiyan waxa la yiraahdaa cell laakiin haddii laba laga dhigo waa laba battery that means u fiirso xabada batteryga laba cidhifo kala dheer bay ka koobantay marka waa laba cell ayaa meesha inoo yaala one cell two cell imika kan weyn laftarkiisu waa cell weeye cell haddii laakiin laba uu noqdo marka saynisku marka uu kan laba noqdo ayuu u yaqaanaa battery laba iyo wixii ka badan baa marka la yiraahdaa battery okay haddaba saynu arkayno cidhifkii dheeraa waa plus waxaynu aragnaa circuit-keenaasi waxa uu ka kooban yahay cell iyo wire-radii iyo xabad laambada current-ku wuxuu ka imanayaa saynu arkayno dhinaca dheer ama dhinaca pluska ayuu ka imanayaa current-ka dhinaca pluska ka imanaya ayaa loo yaqaanaa conventional current waa current from positive side ama from positive terminal to the negative terminal baad oran kartaa current-ka ka imanaya cidhifka pluska soona gelaya cidhifka minuska laakiin maadaama oo waxa soconaya ay yihiin kaas waa current-ka waxa exactly soconaya ay yihiin electronadu waxay leeyihiin negative charge dhinaca gaabanna way ka imanayaan
iyaga laftarkoodu current bay sababayaan. Currentkaasi waxaa loo yaqaanaa electron flow. Currentka ka imanaya xagga negative-ka lafahantiisa waxaa loo yaqaanaa electron flow. qodobka labaad waxaynu kaga hadlanaa relationship between I, Q and T. macnaheedu yahay currentka iyo charge-ka iyo time-ka xidhiidhka u dhaxeeya. Okay, saynu hore definition-kan ugu sheegnay waxaynu yidhi currentku waa rate of flow of charge. waa time-ka uu ku soconayo charge-ku. marka haddaba waxaa la yidhahdaa current waxaa lagu helaa charge divided by time. marka loo qoro calaamada ahaana currentka oo I ah waxaa lagu helaa charge-ka oo Q ya oo loo qaybiyay time-ka oo T ya. I equal Q divided by T. taas waxay noo tilmaamaysaa Q oo charge-kiina inuu leeyahay I times T ama isku dhufashada labada inuu ku leegaanayo. Okay, unitka currentku waa ampere oo loo soo gaabiyo xarafka A capital. marka qaarna waxaa loo qoraa AMPS. amps ayaa la iska soo qaataa. 1 ampere waxay u dhigantaa 1 coulomb per second. saad ka arkayso halka qaacidadaba dee charge-kii iyo time-kii baa la isku qaybiyay. charge-kiina waa coulomb, time-kiina waa second. marka 1 coulomb per second buu noqonayaa. 1 ampere waa 1 coulomb per second. halbeegyada yaryar la isticmaalo waxaa ka mid ah milliampere iyo microampere. 1 milliampere waa 10 power minus 3 ampere. 1 microampere-na waa 10 power minus 6 ampere. saan hore u tilmaamnay milli iyo micro iyagaa qiimayaashan iska leh. milli waa 10 power minus 3, microna waa 10 power minus 6. Okay, examples. bal tusaalaha koobaad aynu ku bilowno inagoo isticmaalna qaacidadii. waxaa layna siinayaa given. matalan waxaa lagu yidhi charge-kii waa 10 coulomb, time-kiina waa 5 second. I baa laga doonayaa. muxuu noqon karaa currentkii? waxaad leedahay I waxaa lagu helaa Q divided by T. waayo waxa ugu muhiimsan marka aad rabto inaad wax ka shaqeyso inaad qaacidada ku horeyso. dabeedna aad qiimayaasha ku bedelato. Q-na waa 10, time-na waa 5. marka ku bedel labadooda iskuna qayba waxa ku soo baxaya 2 ampere. tusaale labaad waxa lagu siiyay I inay tahay 6 ampere, time-kiina uu yahay 0.5 second. marka waxa laga rabaa charge ama Q. maxaad ku bilaabaysaa qaacidadaad ku helayso Q. Q maxaad ku helaysaa? waxaad leedahay Q equal IT. markaad qaacidada qorato ka bacdi qiimayaashii ku bedel. I oo 6 ahayd iyo time-ka 0.5 ahaa marka la isku dhufto waxa soo baxaya 3 coulomb. waxaad raadinaysaa charge buu ahaa waanaad halbeega siisaa. charge-kana unitkiisu waa coulomb. way tusaale saddexaad waxaa la yidhi a charge of 8 coulomb passes through a wire in 2 seconds. charge 8 coulomb ah ayaa dhex maraya wire muddo 2 second gudaheeda ayuu soconaya. su-aalahana marka layna weydiiyey labada shay hadda layna siiyey waa charge iyo time. waxaa layna weydiiyey what is the rate of flow of charge in this time. muxuu noqonayaa waxa loo yaqaano qiyaasta uu ku soconaya charge-ku ama rate of flow of charge maxay noqonaysaa muddada 2 second. talabaad waxaa lagu yidhi find the number of electrons passing through the wire. waxaad helaysaa number of electrons ka dhex maraya wire-ka haddii lagu yidhi ED waa 1.6 times 10 power minus 19 coulomb. Okay, ka hor intaynaan shaqada bilaabin waxaa muhiim ah inuu u baahanahay inaynu qorano given-ka maxaa layna siiyey. Okay, meesha waxaanu ku haysanaa charge oo 8 coulomb ah iyo time oo ah 2 second. wax kaloo layna siiyey ED ama charge of 1 electron 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. 1 electron ba charge-ka uu qaadi karo. waxaa laynaga doonayaa laba shay. mid waxa weeyaan current-kii, ka labaadna waxa weeyaan number of electrons-ki. marka number of electron horeynu soo qaadanay marka waxa muhiim ah inaynaan qaacidadiisa iloobin. aan ku horeyno current ama I. current markaynu raadinayno imise shay baynu u baahanay. waxa meesha yaalo dhan miyaad u wada baahantay? haddii aad u wada baahan tahay ha isticmaal. haddii laakiin aanad u baahnayn waxa meesha yaalo dhan ha wada qaadanin. laakiin qaacidadaadu wadada ay marto un raac. for example current-ka markaad raadinayso waxa lagu helaa I equal Q divided by T. current-kaaga waa I, qaacidadiisu markaa waa I equal Q divided by T. hadda Q waa 8 coulomb, T-na waa 2 second. labadaasaad isticmaalaysaa. tan uma baahan markaa inaad soo qaadato inaad isticmaasho toona waad iskaga tegaysaa. marka waxaad leedahay waa A divided by 2 oo soo baxaya 4 ampere. halkaa aan ku yar celiyo please. markaan ku leeyahay waxay naga maqan current ama waxa layna weydiiyey current maxaan ku garanayaa current layna weydiiyey.
currentka definitionkiisa ahaa rate of flow of charge. waxa lagu yiri waa maxay rate of flow of charge? rate of flow of charge waa current. definitionkii currentka waanaad xasuusataa. haddii lagu yiraahdo what is the rate of flow of charge, that means what is current bay ka dhigantay. marka waa inaad qodobkaana maanka ku haysaa. su-aasha b da waxa la inaga doonayaa number of electrons. n waxa lagu heli jiray n equal q divided by e. marka waxay noqonaysaa q daadina waa 8, e dina waa 1.6 times 10 power negative 19. marka aad ka shaqeynayso 10 power minus 10 to the power of negative 19 ka dusha g waxay noqonaysaa 8 divided by 1.6. 10 to the power of negative 19 wuxuu noqonayaa 10 to the power of 19 oo plus ah. marka hadaad 8 1.6 u qaybiso waxa kuu soo baxaya 5 10 to the power of negative 19 kina meesha uu iska taagnaanaya. that means number of electrons ka aad raadinaysaa waa 5 times 10 power 19 electrons aad meesha ku haysataa. okay, circuit symbols. calaamadaha circuitka. calaamadaha circuitka aad bay fara badan yihiin runtii. dhammaantood hadda halkan kuma wada qaadana, laakiin waxaan doonayaa dhowr muhiim ah inaan noo soo qaado. waxa kamid ah lama isticmaalo sawirka dhabta ah ee circuitka oo dhan, laakiin waxa la isticmaalaa calaamado gaar oo la isla garanayo. calaamadaha waxa kamid ah switchka. switchku waa ka waxna laga shido waxna laga baqtiyo. switch open iyo switch closed. switchku marka uu furan yahay iyo marka uu xidhan yahay calaamadahaas uu yeelanaya. marka uu open ka yahay calaamadaas uu leeyahay, marka uu xidhan yahay calaamadaas uu leeyahay. okay, waxa kamid ah wire-rada ama conductorska. wire-rada marka aad sawirayso laba wire oo conductors crossing not contact, laba wire oo iska gudbaya ama laba conductor oo isdul maraya laakiin aan istaabanaynin, qaabkaas oo kala sawiraysa. laba wire oo la isku xidhay waa conductors crossing with contact, waana iska gudbayaan waana isku xidhan yihiin, waana dhexda dhibic uga samaysaa. that means waxay muujinaysaa labada wire ee iska gudbaya inay meel isaga xidhan yihiin ama istaabanayaan. ammeter waxa lagu cabirayaa currentka, voltmeterna waxa lagu cabirayaa voltage-ka. resistor materialka ama substance-ka joojiya electric current-ka ama yareeya socodkiisa, calaamadaas ay leedahay iyaduna. okay, calaamadaha muhiimka waxa kamid ah calaamadan oo muujinaysa oo la yiraahdo asliyan variable. wixii calaamada lagu dhex sameeyaa waa shay isbedbedelaya. tusaale, haddii aad calaamada haysato, calaamadaasi waa capacitor. haddii markaa falaadhan variable-ka la dhex mariyo waxay isu bedelaysaa variable capacitor. waa capacitor capacitance-kiisa la bedeli karo. calaamadan waynu garananaa hadda same tilmaamnay waa battery-ga. sorry, waxa weeyaan waa resistor. resistor marka calaamada la dhex mariyo waxay isu bedelaysaa variable resistor. yacni waa resistor resistance-kiisa la bedeli karayo. marka calaamadaas wixii ay dhex martaa, xataa battery-ga hadday dhex marto calaamadaas wuxuu isu bedelayaa variable battery. qodobka saddexaad oo ah effect of current, saameynta currentka. an electric current has 4 effects. qulqulka electric wuxuu leeyahay 4 effect ama 4 saameenood that reveal this existence oo muujinaya jiritaankiisa. waa 4 qodob oo soo saaraya inuu yahay currentku inuu jiro. waxa kamid ah matalan magnetic effect. wuxuu leeyahay saameyn birlabeed buu leeyahay. oo tusaale, haddii aad wire ku xidho battery yar haddii aad musbaar baan ujeedaa aad wire ama conductor ku duubto, sidaad arkayso aad batteryna labada cirif kaga qabato, ogow intaa wire-ku ku duubay magnet bay noqonaysaa. magnetkaas sida meel kale kama imana waa saameynta currentka meesha maraya ayaa magnetka inoo dhaliyay. tusaale labaad, xaasow ama wire qulqul electric dhex maraya haddii aad hoos dhigto magnetic compass, baarka la yidhaha jiheeyaha, haddaad hoos dhigto irbadda jiheeyuhu way weecanaysaa. sababtaa waxa weeyaan dee irbadda jiheeyaha waxa dhaqaajiya waa magnetun. marka magnetkuna meel kale kama imanaya, wire-ka qulqulka electric dhex marayo ayuu ka imanaya. taasina waxay caddaynaysaa inuu currentku leeyahay magnetic effect, saameyn birlabeed inuu leeyahay. qodobka labaad waa lighting effect. wuxuu leeyahay saameyn iftiin, oo de waxaynu garanaynaa laambadaha aynu shidano oo dhan waxay isticmaalayaan electric current. wuxuu leeyahay wax la yidhaha chemical effect oo ah electrolysis-ka. dabcan chemistry-ga markaad dhiganaysaan baad si fiican ugu aragtaan. electrolysis-ku kama maarmo waxa loo yaqaano electricity-ga ama electric current kama maarmayo. wuxuu leeyahay heating effect buu leeyahay, saameyn kuleyl buu leeyahay, oo dhammaan agabyada wax lagu karsado inta badan waxay isticmaalaan electric current ay isticmaalayaan, sida matalan electric iron kaawiyadii, kettle kaldigii, cookeriska
immersion heaterka iyo oventa intuba waxay isticmaalayaan electric current. marka waxay taasina cadaynaysaa inuu leeyahay saameyn kulayl ama heating effect inuu leeyahay bay ku cadaynaysaa. marka currentku afartaa qodob ee muhiimka buu leeyahay waa magnetic effect, lighting effect, chemical effect iyo heating effect. afartaaba uu leeyahay. measuring current, cabiraada currentka. current is measured by an ammeter. currentka waxaa lagu cabiraa saacadda loo yaqaano ammeter. ammeter marka muuqaalkan ay leedahay waxay leedahay laba terminal ama laba cidhif oo midna yahay minus midna yahay plus. red terminal waa positive, black terminal kuna had iyo jeer waa negative. irbad bay leedahay ama pointer, waxay leedahay scale waxay ku qiyaasto. calaamadaasay leedahay ammeterku ama symbolkaasi ayay leedahay, waa goobo xarafka ee lagu dhex qoray. small current is also measured by galvanometer. currentka aadka u yar la sidoo kale waxaa lagu cabiraa saacadda loo yaqaano galvanometer. galvanometerku waa currentku hadduu aadka u yar yahay ayaa la adeegsadaa. waa currentka wixii ka yar ampere sida milliampere iyo microampere. currentkaasi saacadda yar oo loo yaqaano galvanometer ayaa isticmaasha ayaa inoo cabirta. ammeter is connected in series with the circuit component. ammeterka marka saacadda lagu xidhayo waxaa loola xidhaa saacadda la yidhaahdo ammeterka waxaa loola xidhaa qaab series ah ayaa loola xidhaa circuit component. seriesku waxa weeye qaab istabayaala. series waxaan ka wadaa matalan laambadaasaa la doonaya in la cabiro currentkeeda ama currentka dhex maraya. ammeterka waa iyada lagu daba xidhaya. ama marka la leeyahay series laba shay waa series marka la leeyahay waa laba shay oo hal xadhig wadaaga. matalan bayteriga xariga ka yimaada ayuun baana soo mara ammeter laambada isla markaana ammeterka soo mara. marka hal xarig bay wadaagaan dhammaan componentska halkan inoo yaala ama applianceska halkan inoo yaala. marka maadaama oo ay hal xarig wadaagaan waxaa la odhanayaa waa series dhammaantood. marka ammeterkana qaab series la ah ama shayga uu cabirayo had iyo jeer circuit component waxa la yiraahdaa wax kasta oo ku jira circuitkaaga ayaa la yiraahdaa circuit component ama mareegtaada wixii ku jira ayaa la yiraahdaa circuit component. hadba wixii uu cabirayo ammeterku waa inuu series la noqdaa. sababtu waxa weeye because it has low resistance. ammeterku wuxuu leeyahay resistance aad u hooseeya, ma dhaawacaya ama ma joojinayo qulqulkii electriga, saa daraadeed baa series loogu xidhaya. bal hadda circuitkaagan u fiirso. halka waxaa inoo yaala battery ama cell baa inoo yaala. halka waxaa series ula xidhan ammeter, laakiin sida aynu arkayno bartaa marka aynu joogno circuitkeenu wuu qaybsamaya. laba qaybood buu qaybsan, qayb dhinaca martay iyo qayb dhinacan usoo baydhay. marka lama odhanayo waa series, parallel buu isku bedela ama isgarabyaal. circuitkaagu wuu soo wareegaa, qaybtaasina way soo wareegtaa, qaybta kalena way soo wareegtaa, haddana way isku soo noqotaa, wadadeedii hore dib ugu soo dhacdaa. haddaad u fiirsato circuitkaaga ammeteradu waa imisa. iminka halka waxaa inoo yaala ammeter A iyo ammeter B iyo ammeter C. waxaa inoo yaala lambiska lamp 1 iyo lamp 2 iyo lamp 3. waxaynu odhan karnaa ammeter A is series with lamp 1. ammeter A haddaad u fiirsato waxay series la tahay lamp 1 waayo iyada ayay xadhig wadaagaan. ammeter B is series with lamp 2. ammeter B haddaad u fiirsato ammeterkan la yiraahdo ammeter B waxay series la tahay lamp 2 waayo iyada ayay xadhig wadaagaan. ammeter C is series with lamp 3. ammeter C na series bay la tahay lamp 3. haddaad ammeter C u fiirsato hal xadhig ayay wadaagaan labadoodan. marka dhinaca ka soo eegto xadhig bay wadaagaan, series bay isku yihiin. marka ammeter C marka ammeter waliba laambada ay series la tunbay currentkeeda cabiri kartaa. ammeter A waxay currentkeeda cabiraysaa lamp 1, ammeter B waxay currentkeeda cabiri kartaa lamp 2, ammeter C na waxay currentkeeda cabiri kartaa oo kaliya lamp 3 waayo iyada ay xadhig wadaagaan, iyada ay series yihiin. ammeter C ma cabiri karto lamp 1 sababtoo ah ammeter C waxaan u cabiri karaynin lamp 1 series lama aha. lamp 1 markuu halka la marayo circuitkeena laba laamood buu qaybsamay. marka lamp 1 series lama aha C waayo xadhig kaliya ma wadaagaan. lamp 1 waxay xadhig la wadaagtaa ammeter A. okay, ugu dambeyntii exercise su-aasha koobaad waxay odhanaysaa if the current in a flat lamp is 5 ampere. currentka laambad dhex maraya flat lamp waxaa la dhahaa inta badan laambadaha gawaadhida oo kale ama kuwan khashaafadaha ee kamaradaha dadka wax sawiraha isticmaalaan. flat lamp currentka dhex maraya hadduu yahay 5 ampere, what charge passes in muxuu noqonayaa chargeka meesha gudbaya ee 1 second muddo 1 second
b 5 minute muddo 5 daqiiqadood ogsoonow timekaaga mar walba waxa la doonayaa inuu second ahaado xataa 5 minute secondad ku bedeli doontaa markaad ka shaqaynayso hadii la idmo qaacidana oo isticmaalaysaa figure 37.7 waa shaxanka halka aynu ku arkayno shows a circuit containing battery waxa uu ku tusayaa circuit ka kooban battery oo kaasi ah switch oo kaasa and 3 identical lamps saddex laambadood oo identical ah waa identical marka la leeyahay waa same resistance marka waxay isticmaali karaan hadii ay qaab isku mid u xidhan yihiin currents like waa L1 L2 L3 hadaba draw and add waa tawiraysaa waxaad ku daraysaa an arrow falaad baad ku daraysaa sawirkaagan to show the current direction saad u muujiso jihada current ku soconayo in the circuit-ka when the switch is closed markay switch-ka la xidho laba waxaad ku daraysaa an ammeter used to measure lamp L3 ammeter cabiraya laambada L3 oo kaliya wax kale lama doonayo ammeterkaas ma aha inuu cabiro L2 mana aha inuu cabiro L1 waa inuu cabiro L3 oo kaliya labadaas sawir baad ayaad ku muujinaysaa circuit-kaaga dusheeda The drawing shows sawirkan wuxuu ku tusayaa an electrical circuit mareeg electriya containing a cell lamp and some insulator cover wires cover clips waxa uu ka kooban yahay saddex shay waa cellkii iyo laambadii iyo insulator cover wire clips waxa la yiraahdaa qabatin ama bahalo yar oo qabta wire-rada oo laakiin maxaan ku dhahdaa insulator hard bay leeyihiin oo waxa loogu talagalay in laga ilaaliyo qofka inuu electric shock qaado si aanu current ku taaban wire clips waa kuwaas hadaba waxa lagu leeyahay direct current flows through the circuit direct current baa dhex soconaya circuit-ka name the particles that flow waxaad magacaabaysaa particleska qulqulaya ee meesha soconaya b why do the particles flow maxay particleskana uga soo socdaan from the negative terminal cidhifka minuska to the positive terminal ay ugu soo soconayaan cidhifka pluska